بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله daawadayaal kusoo dhawaada Raacayam Channel. Falagu waa erey af Carabi ah oo micnihiisu yahay Ingiriis ahaan astronomy. Astronomy-gu waa barashada habka ay u shaqeeyaan meerayaasha, xidigaha iyo wixii la mid ah, socodkooda iyo meelaha ay maraan. Cilmiga falaga waxaa gacan ka geystay filosofaradii hore ee Giriiga, inkastoo aqoonta loo lahaa xilliga cilmi falaga ay aad u yareyd, ma awoodi karin inay wax badan ka sheegaan. Markii ay diinta Islaamka bilaabatay, culimada Islaamka waxay bilaabeen inay falaga bartaan. Si loo garto jihada qiblada, waxay soo saareen meelaha ay qorraxdu marto ilaa ay soo saareen maalinta ay qorraxda si toos ah u kormarto Kacbada. Waxay kaloo barteen boosaska xidigaha qaar oo lagu garan karo jihada. waxaa horay u sii waday culimadii kale ee Islaamka uu ka mid yahay Khwarizm. waxaa sheegid mudan in Islaamka xilliga uusan jirin wax ku gaaray cilmi falaga iyo culumta kale. dhulka waa mid ka mid ah planetiska ama meerayaasha sideed ah ee ku dul wareega qorraxa. waxaa jira kuwo kale oo planetiska u dhow oo la raaciyo iyo kuwo kale oo aan planetis ahayn sida asteroidska, cometiska, bilaha oo ku jira solar systemka uu hogaamiyo qorraxa. xidigaha aan habeenkii aragno aad ayay u fog yihiin, maaha wax dhow. waxaa ka dhow planetiska sida Mars, Mercury, xitaa qorraxa ayaa ka dhow. xidiga wuxuu leeyahay iftiin asaga ka yimaada, dhulka oo kale xidig ma ahan maxaa yeelay ma lahan iftiin asaga ka yimaada. waxaa la mid ah bisha. xidiga dhulka ugu dhow waa qorraxda, waxay u jirtaa dhulka masaafo dhan 93 milyan oo mayl. dhammaan meerayaasha iyo ashyaada kale ee ku jira solar systemka waxay ku jiraan gravity-ga qorraxda, kaasoo ka dhigaya inay ku dul wareegaan oo ay ku jiraan booskooda, khadkoodana ku socdaan. meerayaasha midba midku uga dhow yahay qorraxda wuxuu la kulmayaa gravity aad u badan. dhulka waa meeraha saddexaad ee qorraxda ugu dhow. waxay ku qaadataa inuu hal wareeg oo dhammaystiran ku sameeyo qorraxda 365 maalin, halka Mercury oo ah meeraha ugu dhow qorraxda ay ku qaadato 88 maalmood, halka ay ku qaadato Neptune oo ah midka ugu shisheeya planetiska 165 sano inuu hal wareeg oo dhammaystiran ku sameeyo qorraxda. meerayaasha midba midku uga dhow yahay qorraxda wuu ka meerto gaaban yahay, macnaha meesha uu ku wareegayo way ka yar tahay kuwa kale. qorraxda cabir ahaan waa wax ka badan 330,000 oo dhul. heerkulka sagxadda qorraxda waa 27 milyan degrees Fahrenheit oo la mid ah 15 milyan degrees Celsius. waxay ku socotaa isbiidan 820,000 kiiloomitir saacadiiba. laakiin socodka qorraxa waxaa ka dhalanaya inay dhammaan dhaqaaqaan meerayaasha kale iyo wax kasta oo ku jira xindaabka solar systemka. xawaaraha solar systemka wuxuu la mid yahay xawaaraha qorraxa. solar systemka waxay ku qaadataa 230 milyan oo sano inuu hal wareeg ku sameeyo Milky Way galaxy. solar systemka meeraha keliya ay nolosha suuragal ka tahay waa dhulka. culimada sayniska waxay tijaabooyin ka sameynayaan meeraha loo yaqaan Mars sidii looga dhigi lahaa meere nolol ku habboon. waa meeraha afaraad, cabir ahaan waa 144 milyan kiiloomitir square. qorraxdu wuxuu u jiraa 227 milyan oo kiiloomitir. waa planet qalalan, waxay sheegaan inuu hadda ka hor biyo lahayn. bisha dhulka Luna ayaa lagu magacaabaa. bil kasta magac ayaa la siiyaa si looga sooco bilaha kale. haddii bil la iska dhaho waxaa laga wadaa bisha dhulka. bisha si toos ah uguma jirto gravity-ga qorraxda, waxay ku jirtaa gravity-ga dhulka. waxay ku dul wareegtaa oo ay nala socotaa markuu ku dul wareegayo qorraxa. solar systemka uu hogaamiyo qorraxa waa mid ka mid ah wax ka badan 2500 solar systems oo ku dhex socda galaxy loo yaqaan Milky Way. Milky Way galaxy-na waa mid ka mid ah wax ka badan 100 bilyan ee galaxy ee ka jira caalamka telescope-ku gaaray. waxaa laga yaabaa inaad cirka ku aragto xidiga dhintay ama burburay malaayiin sano kahor oo aan meeshaba joogin. sababta aad u arkayso waa in iftiinka ay soo direen malaayiin sano kahor ilaa hadda wadada ku soo jiro, fogaanta ay kaa fog yihiin darteed. xidigaha aan aragno habeenkii dhammaantood kuma jiraan solar systemkeena. solar systemkeena hal xidig ayaa ku jira, waa qorraxa. xidigaha aan aragno habeenkii isku galaxy ayaa nahnay.
xidigahan aragno midka noogu dhow wuxuu noo jiraa 41 trilyan oo kiiloomitir ama 4.24 laadyeer. Laadyeer waa masaafada uu iftiinku ku jari karo sanad, halka sano iftiinka wuxuu jari karaa 9.44 trilyan kiiloomitir. Marka halka laadyeer wuxuu la mid yahay 9.44 trilyan kiiloomitir. Iftiinka halka sakan wuxuu jari karaa 300,000 oo kiiloomitir. Fogaanta haddii ay intaas ka badato, waqtigana wuu badanayaa. haddii uu burburo xidiga noogu dhow caawa, waad arkaysaa habeen dambe ilaa waxaad arkaysaa wax ka badan 4 sano. Iftiinka uu soo diray dhammaantiis markaad aragto ayaad arkaysaa isagoo burburaya ama dhacaya ama meesha ka baxay. Iftiinkiisa ugu dambeeyay inuu kusoo gaaro waxay qaadanaya 4 sano iyo bilooyin. iftiinka qoraxda inuu soo gaaro waxay qaadataa 8 daqiiqo. adigaba waad xisaabi kartaa haddii lagu siiyo fogaanta qoraxda ee dhulka u jirto oo ah 149.6 milyan kiiloomitir. meerayaasha indhahada ayaad ku arki kartaa habeenkii kaliya haddaad taqaano xilliga la fiiriyo iyo dhinaca laga fiiriyo. way muuqdaan sanadkii oo dhan markii laga reebo waqtiyada qaar. cilmiga meel kasta oo aad ka istaagto waxaa ku jira astaan Ilaahay lagu garto oo mudan in lagu cibro qaato. Ilaahay quraanka wuxuu ku dhahay: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها. badanaa aayad calaamad Ilaahay lagu garto oo dhex ahaatay samooyinka iyo dhulka ay dul marayaan. يمرون عليها وهم عنها معرضون. ay dul marayaan ayagoo ka sii jeeda. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. badankood ma rumeeyo Ilaahay inay mushrikiin yihiin maahine.